بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم إلى آخر الآية. ولالك مسلم كأيولاش مسلم داء وحربا إنان نفتي ذي يتاذب حسوسيو أرن آد إياد مهم oo dadka muslimiinta ah in badan oo laga yaabo aysan ku baraarugsanayn. waxaan wada ognahay walaasha muslimadda ee walaalka muslimka ah in saacad walba ama laxdo walba aan dambi galayno. dambiga ama ha ahaado wax nala amray inaan ka fogaano nagala reebay inaan ku dhacno, ama ha ahaado wax nala amray inaan samayno inaan ka gaabino. indhaha nagu mar walba waxay ku dhacayaan gaf iyo xumaan iyo dambi. gacmahanaga jawaarixdanada oo dhan waxaana hubaa inaan jecelnahay in ilaahay dunuubtanada u dhaafo. waxaan la dhaqaaqi la'nahay oo la socon la'nahay dhammaanteen in badan oo naga mid ah dunuub. bini aadamkana sidiisaba qof macsuum ah waxa weeye ma aragtay ma jiro. ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ambiyadiisa doorashada uu doorto ayaga uu maaragtay alla subxaanahu wa tacaala u ilaaliyo ma ogi. haddaba waxaan rabaa inaan fartiintan kooban kuugu soo gudbiyo, maadaama intaas oo dunuub iyo dhibaato ah mar walba aan ku jirno. camal aad iyo aad u fudud oo mucdamkanaga dadka muslimiinta ay sameeyaan oo ilaahay ku xiran, laakiin laga yaabo muhiimadda uu leeyahay inaysan sidaas ugu baraarugsanayn dad badan oo ka mid ah. laakiin waa shay ku xiran cibaadaadka aan samaynayno shardi u ah oo la'aanteed aan la samayn karin. laakiin inaad u soo qaadato shardigaas inaad cibaadadan weyn samayso ma ogiya laga yaabo inaadan ku baraarugsanayn fawaa'idda kale iyo waxa laga helayo. arrinkaa muxuu yahay walaasha muslimadda iyo walaalka muslimka ah? wuxuu noo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam camalkan aadka u fudud oo mar walba aan samayno haddaan sida uu yahay oola nimaanno, niyaddanadana aan qalbiga ka guntanoon gashanno shayga asaga inaan ku rabno inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala na siinayo. haddaba shaygaa muxuu yahay? waxaan rabaa inaan kuu sheego walaasha muslimadda ee walaalka muslimka ah arrin ilaahay uu dunuubtanada dhan ku dhaafayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala jirkanaga kaga saarayo dunuubta oo dhan waa sheege. wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis imaamu muslim uu soo saarayo min xadiis cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam man tawada'a فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. الله أكبر الله أكبر. من توضأ ننكي ويسيستو للنبي عليه الصلاة والسلام فأحسن الوضوء ويسيده هجاجية سيدي الله إسو أمري سيدي النبي محمد ويسيستي صلى الله عليه وسلم سيدي صحابة الله بري ويسيسته خرجت خطاياه من جسده جفف كيسة يذنوب تيسر لن وحي كبح ينجر كيسة حقيسة ويسيدي بالراعيان حتى تخرج من تحت أظفاره إلى أي كبح ذا ذنوب تيسة يجففكيس أي كبحان عديها حتى هوستو دكوا كجرا أي كبحان. معلوم والبوحان هو ولا لك مسلم كي ولا شيء مسلم ده إناد ويسستو تكتيت نيدا مجشة ولي ويسدا صلاة ده إناد ويسست مؤجية إن إلهي كوجود عف الذنوب تأرن قلبي على مجشة ويسدا إسكها جاجي براه دادا أقول سيلو ويسستو وتق علماء يويدي صحابة رضوان الله عليهم intay isu weysaystaan bay dhihi jireen ama u weysaystaan dadka taabiciinta bay dhihi jireen saasuu nabiga noo baray calayhi salaatu wasalaam. haddaba walaasha muslimadda ee walaalka muslimka ah weysada ood hagaajisid waxaad ku helaysaa ilaahay inuu dunuubtaada dhaafo. ilaahay waxaan weydiisanayaa subxaanahu wa tacaala dembigayga iyo kaagaba ilaahay inuu dhaafo. wa sala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam ajmaciin.